waa kuma shantii tuug ee ugu xariifsanaa ama ugu caqliga badnaa. haddaba maxay sameeyeen shantan tuug? ku soo dhawaada qaamuuska dunida. fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay aad nina soo booqatay, subscribe inoo saar si aysan mar kale kuu dhaafin xogaga muhiimka iyo dhacdooyinka caalamka aynu ku soo gudbino kanaalka qaamuuska dunida. Mareykanka, tuug ayaa wuxuu kaamira ka xaday gaari kadibna uu u soo celiyay, balse maxaa ku kalifay inuu soo celiyo kaamira uu marqaati tuuga? waxaa ku kalifay tuuga kaamirada uu gaariga ka xaday inuu soo celiyo. wuxuu arkay inay leedahay haweeney kansar qabta, sawirna ay isaga qaadaysay kaamirada si ay caruurteeda ugu soo xasuustaan markii ay dhimato. dabcan tuugani ayaa ka fikiray caafimaadkiisa, aynu dhihi karnaa. kadib markii uu ogaaday kaamiradaba in ay leedahay qof aad u xanuunsan oo cudurka halista badan ee kansarka qabto, sidaas darteed ayuuna u soo celiyay kaamiradii uu xaday. tuuga labaad, halka iyo Sweden, waxa uu xaday laptop computer. kadibna wuxuu ogaaday in laptopkani leeyahay bare jaamacadeed, uguna jiraan baaritaanadii iyo lectureeskii uu aruurinayay muddo 10 sano ah kadib. dabcan tuugii ayaa fikiray oo u naxay macallinkii lectureeskii oo ugu jiray laptopka iyo cashiradii intaasoo muddo 10 sano ah aruurinayay. balse muxuu sameeyay tuugaan? wuxuu sameeyay cashiradii lectureeskii dhammaan ugu duubnaa ee ugu jiray xogta ugu jirtay dhammaan laptopka macallinka, wuxuu ugu soo shubay memory flash, kadibna wuu u diray. laakiin laptopkii muusan u soo celinin. laakiin way uga roon tahay laptop oo kale mar labaad uu heli karaa macallinka. laakiin xog mar oo intaasoo sano la aruurinayay, 10 sano wax yar maahan xog la aruurinayay, mar labaad inuu helo aad u adag tahay hadduusan haysanin koobi iyo wax kale meel aan u oolin. tuugaasna sidaas ayuu sameeyey. waxay ahayd halka iyo Sweden. markaana aynu isla imaano Germany. Germany maxaa ka dhacay? tuug ayaa u soo dhacay gurigii. wuxuu ugu dul yimid naag caruur haysata, wuxuuna ku qasbay inay aamusaan iyada iyo caruurteeda asigoo qoray ku qabtay. isla markii uu guriga galay tuugii oo ilmaha iyo haweeneyda ay ku jiraan, uu isaga soo laabtay. muxuu arkay? maxaa soo celiyay? dabcan asoonan falgalkii iyo howshii mishinkii uusan fulinin, asoo waxba qaadan ayuu guriga ka soo baxay. wuxuuna guriga uga soo baxay, waxay ahayd mid ka mid ah caruurtii ayaa wuxuu u soo taagay lacag aad u yar ayuu u soo taagay. tuugii ayaa isku xishooday. wiilkii yaraana waxay ka ahayd naftaada ku badbaadiyo lacagtan ha qaado tuugan. balse tuugii ayaa isku xishoodo lacagtan aadka u yar oo cunigan saqiirka u soo taagay ayuu ka xishooday, uuna iskaga laabtay tuugani. go'aankan asaa gaaro kolley oo ka laabtay gurigii. aynu ku sii soconno tuuga afraad, halka iyo Australia. muxuu sameeyey tuugii? isla markaas ay sheekada qorayso. tuugaas waxa uu arkay gaari daaqadihiisa ay furan yihiin, kadibna wuxuu ka qaatay telefoon iyo boorso. balse maxaa dhacay? tuugii isla markuu qaatay waxyar laga joogay, wuxuu uu arkay moobilkii uu qaatay sawiro caruur yar la kufsanaya ay ku jiraan. isla markii tuugii dareenkiisa xatooyadnimada oo wax uu xadaa way kala weynaatay falkan meesha ku jiro, oo telefoonka markuu arkay in caruur yar la kufsanayo sawirada ay ku jiraan, waa dabcan aad u xanaaqay. isla markaana booliskii ayuu isku dhiibay, wuxuuna qirtay inuu geystay falkan xatooyada ah. uu asiga qaatay telefoonkan gaarigan oo ka dhex qaatay moobilkii. intaas wuxuu u sameeyey uu isaga wareejiyay booliskan isku dhiib. waxay ahayd ninka moobil kale in la ogaado, kadibna
falkan laga abaalmariyo oo ah in caruurta la kufsanayo ay ku jiraan taleefanka waxaana cadaatay isla markii ninka inuu yahay nin 46 jir ah oo nin weyn ah kadibna xabsi ayaana la geliyay baaritaan dheer kadib dabcan tuugani wuxuu sameeyay booliska ayuu la shaqeeyay wuxuuna sameeyay wax aad u fiican tuuga u dambeeya oo ah tuuga shanaad asigana waxa uu sameeyay tuugani waxay sheekada qoraysaa wuxuu xaday gaari laakiin isla markiiba halkeedii ayuu ku soo celiyay maxaa ku kalifay gaari uu mar qaatay inuu haddana isla markii halkeeda ku soo celiyo waxa ku kalifay gaarigii waxa uu ku dhex arkay caano ku dhex jira oo aad u yar kadib uu xanaaqay oo waxa waay cunugii ayuu u naxay markaasuu la kulmay labadii waalid oo gaariga watay oo cunuga uga dhex tageen gaariga ayuu la kulmay kadibna uu ku qaylay oo ka canaantay sababta ay cunuga u dayaceen isla markii waxa uu sameeyay oo ka cararay markii uu uga canaantay oo u sheegay oo isaga cararay oo ka tagay haddaba tani tuug waxyaabaha ay sameeyeen maxaynu ka fahmi karnaa daawade waxaynu ka fahmi karnaa in horta qofka bini'aadanka inuu ilaahay u yeelay qalbi iyo dareemo wax ku dareemo balse dabcan xatooyinimada waxa keento marna waxa keento duruuf waxa keento marka qaar in uu qofka wax fiican u arko inuu waxado uu isdhaw haba shaqaysanin marka waxaynu isku dhiirigelinaynaa in mar walba xumaanta la iska reebo dadka qaarna aan u arkeen inay yihiin dad xun ayaa laga yaabaa marka qaar inay yihiin dadka noogu fiican fadlan subscribe noo saar si aad ula socoto qaamuuska dunida iyo dhacdooyinka uu soo gudbiyo like noo saar si ay dad badan u gaaraan muuqaalada aan soo gudbino commentiga noogu reeb fikirkaagan waa inoo muhiim wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh